maamulka shirkadda wadaag waxa uu maanta si rasmi ah u shaacinayaa in ay furan yihiin iibsigii saamiyada shirkadda wadaag group. saamiyada shirkadda wadaag group oo ah nooca class A oo micnaheedu uu yahay qofka share ku darsada ee shirkadda share ku darsada in uu wax ku yeelanayo oo uu saamigiisa ku jiro dhammaan sharikadaha ay ka kooban tahay shirkadda wadaag group oo kala ah shirkadda wadaag investment, wadaag insurance iyo wadaag microfinance iyo shirkadaha kale ee iyaguna samaysmi doona iyo mashaariicda ka farcami doona. saamiyada shirkaddu ay soo bandhigtay ee la iibinayo halkii saami waa $220. waxaa markaa aan dadka u sheegaynaa in aanay saamiyadaas iska furnaan doonin muddo ay furnaanayaan dabadeetana la xidhi doono. marka waxaanu dadka ugu baaqaynaa inta aanay saamiyadu ka dhammaanin in ay iibsadaan qof waliba intii uu kari karo, iyadoo qofka loo ogol yahay inuu iibsado hal saami iyo wax ka badan. halka saqafka u sarreysa ee loo ogol yahay qofku inuu iibsado waa 500 oo saami. uma ogolin qofna inuu 500 oo saami wax ka badan inuu shirkadda ka iibsado. waxaanu aad iyo aad u fududaynay habkii loo iibsan lahaa saamiga loo iibsan lahaa. qofku adduunyada meel kasta oo uu joogo internet access haddii uu haysto waxa uu soo buuxinayaa foomkaasi wuxuu kusoo qorayaa tafaasiishiisii oo dhan. waxa uu foomka soo raacinayaa oo kusoo lifaaqayaa sawirkiisii iyo ID-giisii. waxaa kaloo foomka kusoo qorayaa inta share uu iibsaday, lacagtii uu ku diray ama zaadka ama e-dahabka ama bangiga uu ku shubay tixraaceedii ayuu kusoo qorayaa. qofkii aan kari karaynin ee aan awoodin inuu internetka kasoo buuxiyo foomka waxa uu iman karaa xafiisyadayada ayuu iman karaa oo loogu buuxin karaa. haddii kale wuxuu WhatsApp ama telefoon kula soo xidhiidhi karaa howlwadeenada wadaag group ee jooga xarumahayaga. iyaga ayaa foomka u buuxinaya. shirkadda ahdaafteeda guud waxaa ka mid ah in la abuuro dhaqan dhaqaale oo wax wada yeelasho ah oo dadku ay awoodooda isu geeyaan si ay ugu maareeyaan oo loogu maareeyo masaa-isha ijtimaaciga ah ee dalka ka jirta. waxay shirkaddu u taaganto ahdaafteeda ka mid ah in ay abuurto wax soo saar oo dalkan mawaaridda ku duugan in wax laga soo saaro oo dalku wax soo saar yeesho. waxaa iyadana ahdaafteeda ka mid ah in shaqo abuur loo abuuro dadka. meelaha u calaamadsan shirkadda inay maalgashato waxaa ka mid ah dhammaan masaa-isha dhaqaale oo runtii aan isleeyahay shirkadda xigta ee shirkaddan kusoo biiri doontaa inay tahay bangi, oo inay aasaasto bangi maalgashi. masalada caafimaadka waxa ku howlan oo ku foogan oo diraasaad fara badan ka diyaariyey qaybteeda caymiska oo runtii ku dadaalaysa iminka doonaysa inay qadiyadda caafimaad darrada dalka ka jirta in ay fikrad revolutionary ah oo runtii wax ka bedesha oo mooska riixda inay soo saaraan oo ay dadka mujtamaca ay soo dhex dhigaan. dadkeena waa ogtihiin halkaa inta lagaga qaadaaba ilaa dowladaha deriska oo dhami waxa ay ka shaqaystaan waxa weeye diyaaradahooduna inay qof inaga mid oo xanuunsanaya sii qaadaan oo ay soo qaadaan iyada oo aynu kari karno in aynu samayno nidaam caafimaad oo dadka u adeega lagaga maarmo dadka maalin walba iyagoo xanuunsanayo buka loo walwaalayo dowlado shisheeye loo walwaalayo.